بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دواد warbixin ku saabsan diyaarad sidii Chad oo laga celiyay hawada Soomaaliya. Chadka ayaa kamid ah waxyaabaha Kenya ay u dhoofisay Soomaaliya. Soomaaliya ayaa xaqiijisay inay dib u celisay diyaarad sidii Chad oo laga leeyahay Kenya oo lagu eedeeyay inay jabisay tilaabooyinka lagu xadidayo fayraska corona sida uu sheegay sarkaal magaciisa ka gaabsaday oo dawladda ka tirsan. sarkaalka ayaa intaasi ku daray in ay diyaaradaasi ay jimcihii dib u celiyeen markii dambana ay ka degtay dalka Djibouti ka hor inta aysan ku noqon Kenya. dhanka kale sida uu ku waramay wargeyska Daily Nation ganacsatada Chadka ee dalka Kenya ayaa waxa soo food saartay caqabad kale kadib markii dib loo soo celiyay diyaarad siday 11 tan oo Chad ah oo ku wajahneed maamulka Puntland ee Soomaaliya. waa markii labaad ay Soomaaliya soo celiso diyaarad ay Kenya leedahay oo sida Chad muddo bil gudaheeda. Nyambene oo ah gudoomiyaha urur ay ku mideysan yihiin ganacsatada Chadka ee Kenya oo la hadlay warbaahinta maxalliga ee Kenya ayaa sheegay in diyaaradaasi siday Chadka hawada laga soo celiyay. Soomaaliya ayaa bishii Maars hakisay diyaarad Kenya ee leedahay oo siday Chad si loo xoojiyo tilaabooyinka looga hortagayo fayraska corona. diyaaradda waxa ay siday 11.3 tan oo Chad ah waxayna ku wajahneed Puntland. waxay sii martay hawada Djibouti abaara 10kii subaxnimo kadib markii ay martay hawada Ethiopia. wuxuu qorshuhu ahaa inay ku degto Puntland waxaana lagu amray inay dib ugu laabato Kenya waana khasaarihii ugu xoogana abid muddo bil gudahood ayuu Manjuri u sheegay wargeyska The Daily Nation. wuxuuna intaasi raaciyay in ay lacag dhan $80,000 ay khasaareen. wuxuu sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay sare u qaaday canshuurta ay ka qaado Chadka taasina ay horseeday inay adkeyn karto inuu gaaro dadkii loogu talagalay. Soomaaliya waxaa ku yaala suuq aad u weyn oo qaadka lagu iibiyo. waxa uu Chadku ka baxaa dalka Kenya gaar ahaan dhulka sare. marka la soo guro Chadka waxaa loo baahan yahay durbadiiba in si dhaqsi ah loogu qaybiyo dadka macaamiisha ah oo ku sugan dalka dibadiisa. isla marka uu Chadku gaaro magaalada Muqdisho ragga ayaa koox u fadhiista oo bilaaba qaylaada. Soomaaliya ayaa waxaa duulimaadyada caalamiga ah xirtay dhamaadkii bishii Maarso si loo xadido faafidda fayraska corona taasi oo ka dhigan in Chadku aanu Soomaaliya la geyn karin. dadka Soomaaliyeed ee ka soo horjeeda Chadka ayaa waxa ay soo dhaweeyeen arrinta la xiriirta celinta diyaaradda siday qaadka waxayna ku talinayaan in aan dib loo fasaxin qaadka maadaama khasaare mooyee uusan faa'iido u lahayn dadka Soomaaliyeed. Kenya ayaa Soomaaliya u keentay doog cagaaran halka ay Soomaaliya ka qaadato malaayiin dollar. dadka cunaqaadka iyo kuwa ka ganacsada ayaa ku baaqay in dib loo fasaxo diyaaradaha qaadka iyadoo ay Muqdisho kaliya subax walba ay ka degi jireen in ka badan 10 diyaaradood oo wada qaad. waxaana hadda si dhuumaaleysi ah lagu keenaa qaadka Muqdisho iyadoo lagu keeno doomo dheereeyo laakiin aysan gadan karin dadka danyarta ah halka gobolada dhexe la geeyo qaadka hareeriga ah oo ka yimaada Ethiopia. haddii saatan uu ku sii socdo qaadka waxaa laga yaabaa inuu si tartiib ah uga dhamaado Soomaaliya maadaama hawadiina loo diiday dadka danyarta ahna aysan gada karin. waana arrin fursad u ah dhalinyaro fara badan oo uu balwad u ahaa kuwaas oo ka hor joogsaday inay asaagood la tartamaan.